farxiyo kalsoonida ku jirto ma aha meel inta la yimaado gabartiida sawir aan kula galo qof maxaa la isha ka soo fasaxay kalsooni daradaas lama haysan naga farxiyo waa boqorad sidii boqoradii oo kale u nooshahay ragga intay meelaha soo fariistaan arinta farxiyo ka hadlaayo oo aan xishoonin gabar dumaashadooda aan hadlin oo aan inay ka hadlaan inay qalad tahay ku hadlaayo farxiyo ورق يعني رجع كهلايو ورجع ولا نور حاسس كذا سيد جاري أجنبي أو جورج وش قيس بحاسس كذا ولا نولين تام ما بحنا هذا وحنا نوش سيد بقردي ننجح على هساتها الحمد لله وحصل لنا كل سوني ده قبط أنا وحول بكوي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعلى السلام دماء مدرسين في الاستوديو كأكيد شفتنا سومالوين وحنا ربعنا كهلا أرين معها بين سوشيال ميديا وغيره سيسكويستين وأنا بيجاه لسه oo ku saabsan sababta uu u baaqday barnaamijka lagu yiraahdo Somali International Fashion Show aniga uga baaqday waxaan rabaa inaan sida saxda ah oo Ilaahay inoo geeyay inaan uga hadlo oo aan ku jirin maxaa la isha been aan ku jirin maxaa la isha dabalnaan kale horta daasharaxa barnaamijkan sababta aan u imid horta waxay ahayd invite gareyn ama casuumaad soo taqaanaa bal isoo casuumaad ku imaaday marka laga hadlaayo dad baa ka soo hadlay lacag buu qaatay markaasuu barnaamijkan kama qayb galin arrinta lacagta ah wax la yiraahdo lacag horta marka hore kuma iman waxaan ku imaaday casuumaad sharaf taas halkaas taala number 1 tan labaad maxaa la ii sheegay horta waxaan rabaa saddex u kala dhigo waxaan saddex ugu kala dhigaa tan koowaad waa inaan ka hadlo horta waxa la yiri qofku markuu caloosha ka baahan yahay uu dhargi karaa oo markuu cunto cuno ku dhargaa hore ugu sii socdaa laakiin markuu qofka qalbiga ka baahan yahay qofka qalbiga ka baahnaa waa wax adduunka ugu daran marka qofku markuu qalbiga ka baahan yahay markuu maanta hadda markuu duhurnimada qadeeyo waa inuu ka fikiraa maxaa hadda casirka asaliye ka dhigan lahayd maxaad ku casheen lahayd caawda maxaa bir ku quraacan lahayd maxaad ku qadin lahayd maxaa weyn dad ku casheen lahayd marka intaas si uu u helo waa inuu been sheegaa waa inuu wuxuu doono ku hadlaa waa inuu wuxuu sameeyay ku hadlaa inta ka soo hadashay barnaamijkan hadda baaqashada barnaamijkan aan ka baaqday qof ku soo hadla ma jiro wax runa qof ku soo hadlay wax sax maanta oo la hubay iyo wax meesha ka dhacay qof ku soo hadla horta ma jiro marka waxaan leeyahay tan number 1 waxa uga baxaya qofku markuu caloosha ka baahan yahay uu dhargi karaa laakiin markuu qalbiga ka baahan yahay ma dhargi karo waa inuu wuxuu doono sameeyaa been iyo wuxuu doono taas halkaas uga baxay tan labaad aan rabaa markii aan galo tan labaad waxaan uga hadlayaa arrinta sida saxda ah ee khilaafka ka imaaday sababtay ku dhacday aan ka hadlayo horta number 1 aniga waxa ii soo diray rag bacsuumaad ii soo diray hadal rageed baan ku soo baxay go'aan rageed baan ku soo baxay go'aan rageed aan meeshan ku imaaday anagoo imaanay hotelka degan markii la gaaray xilliga habeenkii inaan isdiyaarino ahayd hoos aan u degano hotelka aan deganaa la kaliya xaflad lagu dhigay marka hotelka inaan hoos u degano xilliga laga rabay inaan hoos u degano ka qayb galno barnaamijka baa gabar imaaday gudaha noogu soo gashay markaas waxay dhahday salaamu calaykum iyadoo gabadhii muransan markaas waxay dhahday waxaan rabaa waxaan gabadhii iyadoo waxaan u soo invite gareeyay dayax inuu u heeso nin afrika madax ah oo meeshan joogo oo ka soo qayb gala barnaamijka waxay tiri waxaan u soo casuumay inuu ninkaas aniga igu heeso ani waa fahmi waayay hadalkii wiilasha isu casuumay wiil kamid ah banaanka joogeen aniga gudaha ku jiro qolka ayaga markaa meesha ka banaanka ah ay ku murmaayeen ayaga yaa murmeen marka aan imaba galinba waa hawsha dhimaysteen hoos aan u degnay marka aan hoos u degnay la rabay xafladii nooga dhiman tahay albaabka bis inaan ka galno meesha dadku isku diyaarin lahaayeen dadku moodalka kulibsanay wixii oo dhan marka taaganahay ay gabadha haddana igu soo laabteen oo imaadani xaaskeedu meesha isla taagan marka noo imaado waxay tiri salaamu calaykum haddii ay ka qayb galayso barnaamijka waxaa shardi ah inaad telefishin bay sheegto magaciisa aynu ma aqaano laakiin telefishinkaasna inaad berrito waraysi siiso waxaan dhahay excuse me sister maxaa u baahan tahay yaana tahay intaas ka timid intaas ka socda waxay tiri qofka barnaamijkan watay gabadha barnaamijkan dhan wadatay waa aniga marka aniga hadal ma furin ma xiri waan ka anagoo yani jawaabteeda diidan bay isku imaadeen ayaga marka isku imaayay dadka barnaamijka watay ee ay isu casuuntay ayaga iskhilaafeen ayaga dagaaleen waa baxnay koraan fuulnay markaan kor fuulay haddana waa noola imaaday waxaa la yiri maadaama wiilka cadnaan la dhahaan isoo casuumay cadnaankii ay imaaday wuxuu dhahay madaxayga fiir wajigayga fiir madamba khilaaf xaggaas ah ma dhici doono markaan soo laabanay anagoo hotelka u baahan haddana mar labaad inaan galno baa wiilashii ka mid ahaa ayagana barnaamijkii baa ani gabadhii xaggeeda jiray oo haddana ii sheegeen anina gabadha iyagu islahaayeen
marka xaggaygu su'aal la iga raali ahaa waxaan u baahanahay inaan program ka qayb galo marka ha ii soo dhawaanin oo xaggaas iga tag wiilkii markaas maxaa lahaa ii sheegay anaga iskhilaafnay iyo wiilkii kale oo aniga soo dejiyaa isu aamurmeen markay murankiiba wuxuu ku dhammaaday inay iyagu intuu soo baxaan iskal isku dalbadaan ay isu dagaalaan programka meesha ku dhammaaday qaybta labaad xaggaas uga baxay marka programka laga hadlaayo waxaan rabaa marka inaan midda saddexaad u gudbo oo beenta ay dadka magaalada wareejinayaan iyo social media iyo youtube-ka meel walba ay wadaan waxaan rabaa inaan taas si saxa marka uga hadlo ee dadku ka hadlaayaan waa arrinta farxiyo tan saddexaad kusoo gabagabayn doona horta farxiyo waxay kaga sheegayaan horta habeenkii ilaahay baa ila ogiyay rasuulkiisa wax beenaan kuma daraayo farxiyo inta aniga sawirka ila galaysay iyada inta sawirka la galaysa ayadaaba iga badneenba ani oo qofba aan ima rabinba ayada dadku dhan ayada sawir la galayeen oo ayada famous kale ahaydba so waxaad tiraahdeen gabar baa intay dayax u imaaday ay tiri sawir baa kula galaayay wuxuu yidhi dayax intaa marka hore farxiyo intay ka soo qasay qaaday horta maanyaradaas iyo caqliyaradaas iyo fudeedkaas iyo hadal daciifnaantaas qof ay ka muuqato oo u dhashay oo lagu yaqaanaba ilaahay igama dhigin oo ma ihi tan labaad marka arrinta farxiyo ka hadlaysaan farxiyo kalsoonida ku jirto ma aha meel inta la yimaado gabar tiraahdo sawir aan kula galo qof maxaa lahaa isha ka soo fasaxqada kalsooni daradaasna ma haysa annaga farxiyo waa boqorad sidii boqoradii oo kale u nooshahay ragga intay meelaha soo fariistaan arrinta farxiyo ka hadlaayo oo aan xishoonin gabar dumaashadoodu aanan hadlin oo aanan inay ka hadlaan inay qalad tahay ku hadlaayo farxiyo waa rag yani raggaasi ka hadlaayo waa ragga ula nool xaasaskooda sida jaariyada ajnabiga oo guriga uga shaqeysa bay xaasaskooda ula nool yihiin tan uma baahno hadal waxay u nooshaa sida boqoradii nin jecel ay haysataa alxamdulilah waxaasoo dhan kalsoonida ay qabto aan wax walba ka weyn kalsoonidii qabtana heerkaas daciif uma aha inay tiraahdo gabar sawir hala gelin iyo qof taageerayaasheedana iyadaaba igu dhiirigeliso igu soo dhaweyso tiraahda teeda kale dadka aniga taageera iyadayba iga jecel yihiinba aniga oo saxda ah marka assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waa mahadsantihiin dadka faaniskayga ah waxaan hadalkayga kusoo gabagabeynayaa oo hadalkan oo dhan aan kusoo afjari doonaa hal eray inaad isticmaashaan wixii sida dayax si qaldan ula hadlaya aragtaan hal eray boliis isticmaalatan anaa keensan qofku markuu caloosha ka baahan yahay wuu dhargaa laakiin markuu qalbiga ka baahan yahay ma dhargaayo thank you السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأنا السلام لما أمد مسلم في نفس الأدوك أتجوفتان سومالي وين waxaan rabaa inaan ka hadlo arrin maalmahan oo dhan social media haweeneysa isku haysteen oo aniga iga hadlayso oo ku saabsan sababta uu u baaqday programka lagu yiraahdo Somali International Fashion Show aniga uga baaqday waxaan rabaa inaan sida saxda ah oo Ilaahay inoo geeyay inaan uga hadlo oo aan ku jirin maxaa la isha been aan ku jirin maxaa la isha dabalnaan kale horta daan sharaxa programkan sababta aan u imid horta waxay ahayd invite gareyn ama casuumaad saa u taqaanaan bal isu casuumay casuumaadaan ku imaaday oo marka laga hadlaayo dad baa ka soo hadlay lacag buu qaatay markaasuu programkan kama qayb gelin arrinta lacagta ah wax la yiraahdo lacag horta marka hore kuma iman waxaan ku imaaday casuumaad sharaf taas halkaas taala number 1 tan labaad ah maxaa lahaa ii sheeg horta waxaan rabaa inaan saddex u kala dhigo waxaan saddex ugu kala dhigaa tan koowaadaan rabaa inaan ka hadlo horta waxaa la yidhi qofka markuu caloosha ka baahan yahay wuu dhargi karaa oo markuu cunto cunug ku dhargaa hore nagu sii soconaa laakiin markuu qofka qalbiga ka baahan yahay inuu qofka qalbiga ka baahnaado waa wax adduunka ugu daran marka qofka markuu qalbiga ka baahan yahay markuu maanta hadda markuu duhurnimada qadeeyo waa inuu ka fikiraa maxaa hadda casirka casariye ka dhigan lahayd maxaad ku casheen lahayd caawda maxaa berri ku quraacan lahayd maxaad ku qadin lahayd maxaa habeen dambe ku casheen lahayd marka intaas si uu u helo waa inuu been sheegaa waa inuu wuxuu doono ku hadlaa waa inuu wuxuu soo hubay ku hadlaa inta ka soo hadasha programkan hadda baaqashada programkan aan ka baaqday qof ku soo hadla ma jiro wax runa qof ku soo hadlay wax sax maanta oo la hubay iyo wax meesha ka dhacay qof ku soo hadla horta ma jiro marka waxaan leeyahay tan number 1 waxa uga baxayaa qofka markuu caloosha ka baahan yahay uu dhargi karaa laakiin markuu qalbiga ka baahan yahay ma dhargi karo waa inuu wuxuu doono sameeyaa been iyo wuxuu doono taas halkaas uga baxay tan labaad aan rabaa markii aan galo tan labaad waxaan uga hadlayaa arrinta sida saxda ah ee khilaafka ka imaaday sababtay ku dhacdaan aan ka hadlayo horta number 1 aniga waxaa ii soo diray rag baa casuumaad ii soo diray hadal rageed baan ku soo baxay go'aan rageed baan ku soo baxay go'aan rageed aan meeshaan ku imaaday inagoo imaanay hoteelka degan markii la gaaray xilligii habeenkii
inaan isdiyaarino ahayd hoos aan u degano hoteelkii aan deganaa la keliya xafladda lagu dhigay marka hoteelka inaan hoos u degano xilliga laga rabay inaan hoos u degano ka qayb galno programka baa gabar imaaday gudaha noogu soo gashay markaas waxay dhahday salaamu calaykum iyadoo gabadhii muransan markaas waxay dhahday waxaan rabaa waxaan gabadhii